السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في عيني هاي أصحابي آدي بان دي كسور راقي المحال أخضايي دي مشغولة الدنيا لدو أردي بس كحالة دون ويان المحال أخضايي وحربينا مانتا إن يران صوين محال أخضايي دي سو قد بنيو waayaha adduunka iyo waxyaabaha mucjisooyinka adduunka kusoo kordhaya waxaa la nin noolow maxaa aragti ku laaban baa la yidhaahdaa soo maaha. maanta waxaan wadaa adoona inay idinku aragteen ma garan karayo. maxaa dhahdaye wax cajiiba oon la yaabay ayaan arkay. dee maxaa dhahdaa cimrigaaga raaga geel dhala waa ku tusaabay yidhahdeen soo maaha. soo lama yidhahdo taana. maxaa dhahdaye de kole wax inta cimrigaaga kordhaya kole maalinba waxbaa kaa yaabinaya, laakiin anigu inta badan surprise ma arko uma qaato, laakiin waan la yaaba marka hore, laakiin waxa weyn lama because waqtigan ku jirnaa oo waqti wax kastaba maxaa dhahdaye aad la kulmaysid arkaysid ama maqlaysid. marka wax maalinba maalinta ka dambaysa wax cusub baad arkaysaa, wax cusub baad maqlaysaa, wax kaa yaabiyaad arkaysaa, masaad oranaysaa oo heedhe tanna ma soo joogi baad oranaysaa, tanna ma soo joogi, tanna ma arkay, tanna ma sugi, tanna ma arkay, tan ma maqlay baad maalinba oranaysaa. marka waxyaabaha horta bilaadan haddaynu nahay, markay qofku uu haysto maxaa dhahdaa nolol oo yacni noloshu ka badbadato ama ay raaxadu ka badbadato, de wuxuu doonagu sameynaya wix allaale wixii madaxiisa kusoo dhacayuu sameynaya qofka bilaadanki. waxaan kala garan waayey dadka ma noloshiibaa ka badbadatay iyo macaankeediyo wixii oo dhan, dabeetana waxay raadinayaan wax kale oon bilaadanku aanu lahayn ama loo sameynin. ma saasi u socdaan? ma waxaa jirta xanuun maskaxiyana baa jirta oo dee ma miyir qabkiibaa dee yaraaday miyaa tolow inuu wan kala saari la aha. marka anu waxaan siri labada waxba bilaadanku way isku darsadeen, labada waxba bilaadanku way isku darsadeen. waayo waxaad arkaysaa bilaadanka marka waayo waxaad garan kartaa bilaadanku markay nolosha marka ay ku jiraan xayndaabka ay ku jiraan, hadday waxay kaga baxaan aanay haysanin xayndaabkaasi ku jirayaan dadkaasi qofkaasi bilaadanka ah. laakiin markuu helo wuxuu kaga baxo xayndaabka wuu ka baxayaa, wax kaloo cagaha la gelaya. marka bilaadanka waxa u fiican baanu markaasaa eegay inaanay xayndaabkooda aanay ka bixin, waayo hadday ka baxaan balaayo cagaha la gelayaan, balaayo aan garanaynin bay cagaha la gelayaan. marka maanta waxaan idin wadaa nin ku nool wadanka North America, South America. weliba waxaan jecelahay ma Chiliba ma meelaha kale, horta Brazil maaha laakiin waa meelahan kale, wadamada kale ee South America ku yaala weeyaan. ninkaasi wararka maanta laga soo saaray, waa eegi kartaan youtube-yada, waa ka baari kartaan, waa garaaci kartaan number qofkaas magaciisa waa raadin kartaan. ninkaasi maanta wuxuu guursaday alla yaa rabbi, wuxuu guursaday yaxaas gabadha. taa ma soo joogteen? yaxaas gabadh ah ayuu guursaday, taashuu soo xidhay. sawirka hadhowta markaad soo galaysaan arki doontaan weeyaan sawirkaa ninkan ka hadlayo. maxaa dhahdaa yaxaasa uu aroosay oo taashkii loo xidhay. weliba isaga iyo yaxaaskiisu ma soo qaatay, laakiin dadkii faamiliyadii iyo qaraabadii iyo deriskii iyo yacni dadkii intii loo kalgala deganaaba waa loo hambeliyeeyey. waxaa la yidhi mabruuk hebelow inaad yaxaas guursatay. ya marka waxa weeye
maxaa nin noolo maxaa aragti ku laba bali marka ninkaasi xaaska guursadan maanta isku soo dhaweynaya bal maxaa dhahday sheekada waa daawan kartaa laakiin anigu ma jeclayn sheekada buuxa inaan soo diro because hadidana waa la igu qabsan karaa laakiin sawirkiisa idin soo diray sawirkiisa ugu horeyn ba arki kartaan xagga dambe waan kasoo gelinaya sawirkiisa saasi fiican ugu sii aragtaan haddaan more information ay rabtaan waxaa geli kartaan google-ka waa raadin kartaan marka waxaan rajeynaya inaad maxaa dhahdaa bal dee programka ka heshaan dee khayr waan dii rajeynaya barako insha allah waan soo dadaalayaa dee waa kaa maca salaama maxaan dhahdaa saxaabi maca salaama